amaha sirdoonka ee dalka turkiga ayaa dunida uga yaabsaday heerka xirfadeed ee ay gaadhsiisan yihiin laamahooda wardoonku, waxaana la sheegay in qalab waxbasaasa oo maqal iyo muuqaala ay ku xidheen safaaradaha dowladaha ay ka shakisan yihiin ay ku leeyihiin dalka turkiga. waxayna hadda faafiyeen fiideo laga duubay kooxihii sacuudiyaanka ee khaarijiyey weliye jamaal khashoggi oo ka soo baxaya safaaradda sacuudiga iyagoo wata shandada la sheegay inay ku jiraan qalabkii lagu khaarijiyey weriye khashoggi oo ay ka mid tahay miishaar nooca elektriga oo loo isticmaalay in lagu jarjaro hilibkii weriye jamaal khashoggi markii la dilay kadib. waxaana fideogani uu muujinayaa shandad la sheegay in lagu guray hilibkii weriye jamaal khashoggi, waxaana loo dhiibay qof isagu dalka turkiga joogay. waa kan ninka googooyey weriye jamaal khashoggi waana saalax al tubeygi, waa dakhtar ka tirsan laamaha sirdoonka ee sacuudiga, isagoo dhegaha ku wata muusiga dhegaysanaya ayuu jarjaray. waxaana ilaa iyo hadda lala yaaban yahay bal sida ay ugu suurta gashay laamaha sirdoonka ee dalka turkigu inay maqal iyo fideoba u daawadaan wixii ka socday safaaradda sacuudiga dhexdiisa. waxaana loo malaynayaa in shirkadii iyadu dhistay safaaradda sacuudigu ayagu qalabkan ku rakibtay, bal ila daawo sida ay wax u duubeen. Şeylerin